السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسكسو الله بشو وناكسن أصحابتي دقاليقا. maanta waxaan rabaa inaan idinka sheeko ka hadlayso walaaltinimada iyo qiimaha ay leedahay. Aabba ayaa wuxuu dhalay 3 wiil. Wuxuu dhahay maalmaha kamid ah waxaan u baahanahay wiil walba inuu ii keeno ul. Aabihii wiilashii ulihii way u keeneen. Wuxuu ku dhahay wiil walba u soo keenay hajibiyo. Way jibiyeen ulihii. Aabbi wuxuu ku dhahay waxaan u baahanahay 3 jab oo kamid ah ulihii aad jibiseen waa ay ku keeneen. Kadib waa uu isku xirxiray. wiilkii koobaad ayuu u dhiibay ku dhahay oo jibi ulahan waa uu jibi kari waayay. wiilkii labaad ayuu u dhiibay isna waa uu jibi kari waayay. kii saddexaadna sidaa si lamid ah. Aabbi wuxuu ku dhahay ushan jabtay waa adiga, ushan jabtayna waa adiga, tan kalena waa adiga, ulahanna waa adinka. kaliya markii ay tahay way fududahay in lagu jibiyaa, way fududahay in laga guuleystaa. mar haddii aad isku duuban tihiin way adag tahay in la idinka guuleystaa. haddaba inaga Soomaali ahaan waxaan baray dunida saddexaad maanta dalka aan ugu hooseynaa waxay tahay waxa inaga maqan qiimihii ay lahayd walaaltinimadu, qiimihii ay lahayd isku duubnidu. haddaba ka bilow walaalkaaga kuugu dhow adigoo ka dhiganayo garabkaaga midig. ha u arkin cadowgaaga waayo waa walaalka. haddii aad isku duubnaa lahayna maanta waxaan hubaa in aan la tartami lahayn dunidan horumartay sida Mareykan, Ruush iyo Yurub ama aan ka sii horumarsanaa lahayn. maxaa yeelay inaga wuxuu Ilaahay ina siiyay wax gooni ah oo ah hal dhaqan, hal diin iyo hal af. waad ku mahadsantahay daawashada fiidiyogan. fadlan la wadaag asxaabtaada oo gaarsii fiidiyogan. waxaa laga yaabaa inuu anfaco fiidiyogan. follow garay Instagram-ka, Facebook iyo Snapchat intaba. See you next video. Bye.